السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد يوتيوب جانال كيغا يوتيوب جانال كا داوانيسو هاني اوفيشيال. فضلا هدان ugu cusub tahay subscribe la janaalka like noo saar comment ka bixi hadaan la joogteen aad iyo aad u mahadsan tahay hadaan ugu soo biiraysid noo soo dhaweynina maanta waxaan wadaa wax social media saas u wareegayo oo maxay tahay gabar oo caan ah fadeexad laga soo gudbiyay so ina ka hadlaa rabaa oo ra'yigay ka dhibto iyo maxay tahay sida aan ila tahay so marka soo dhawaada asxaabta soo marka asxaabta clipka oo gabadha fadeexada laga qabtay waa gabar caan kulay magaceeda aan ma sheegay kulay ina aragteena macquul meel kasto waa la geeyay meel kasta way taala tan aan la yaabana waxay tahay qofka asaga waxa sameeynaayo muxuu ka faa'iidayaa haduu gabar ceebeeyo ilaa gabar waa walaashiisa weela dhalatay uu dhali doona muxuu ka faa'iidayaa waa waxbana taan ilaa hadda la yaabana wiilasha Soomaaliyeed aad iyo aad u fiican yihiin laakiin wiilasha qaar ayaa xun sida kuwan oo fadeexada san u wareejinayo ama gudbinayo ama ka duubay intaba qof kasto share gareey qof kasto gudbiyay qof kasto uu ku farxay kulligood waa isku mid soo marka asxaabta gabar iyadoo kula dhalatay oo dhali doontid oo hooyada oo naaskeeda soo nuugtay oo soo barbaarisay ina waxaas ku sameysay gabar horta maba ka istaahisho laakiin weeba dhacday hadii aan wax sameeysan oo qalad iniga dhacay oo naga dhacay karaa bil aadan nahay kulligeen qalad oo naga dhici karaa adoo ka dhici karaa anoo iga dhici karaa qof walba ka dhici karaa soo bil aadan u nahay waa qaldameena malaa'ig manihin Somahan soo marka maxaa lagaaga baahan yahay gabar walaashaada hada qalbiga ka xaday oo jacayl been ah u sheegtay jacayl mise rabitaan mise kalsooni wax kasta kuugu sameeyay mise kuugu tusto ina adiga xumaan la damacdid oo duubtid maxaa kuugu kalifi waaba aragtaba qofka inay ku jilacsantay inay wax walba ku ogashahay inay ku jeceshahay dabcan qof kasta waxa uu dareemi karaa gabar markay wiil jeclaatay wax uu ka sameyn karaa gabadha waxa dareemi karnaa inuu jacayl ku qalday oo jacayl been uu ku qalday sababtoo ilaa heerkaas kalsoonida la eg waxa keenayso inay jeceshahay qofkaas ayaa laga yaabaa soo marka ma qaldama ilaah waay adiga maxaa cad u faafinaysaa intaas waxaan daawaday youtubero badan oo maxay tahay waxay rabaan ahaada aniga magacyadooda ma kala garanayo laakiin isoo faafinayo oo videoga soo dhigayo maxaa u soo dhigaysaa walaal video maxaa u faafinaysaa hadda gabadhaas maxay dareemaysaa caawa gabadhaas waxay dareemaysaa waxa dareemi karo gabar Soomaaliyeed wiilasha wax ay dareemi karaan malahan soo xanuunka ay dareemayso waa fahmi karaa ugu yaraan waxay is leedahay hadii ba qalad gashay oo shaydaanku ugu la taliyay mis dishay qabanayso qofka inuu isdilo wax yar oo ku siganaya qofka inuu isdilo ayaa ku qasbaysin haduu waxaan laga sameeyo soo marka asxaabta wallahi wiilasheena wallahi waa wax xun wax fiican ma ina gabar walaashaaya oo maxay tahay kalsooni mise waxay rabta ha ahaatay wax uga duubtay mise xataa yaani khiyaano kulli oo dareemi kartiin horta khiyaano waaye sababtoo qaabka u doow ayaa dareemi kartiin in ayada raali ka ahayn sababtoo uu khiyaanay oo wallahi xumaanta intaas la eeg wuxuu ugu geysanay ka haleysani ma garanayo qof intaas kalsooni ku siiyay see adigu khiyaantay see dhibaatadaas ugu geysatay gabar walaashaay oo Soomaaliyeed intee u dhibaateynaysaa maxaa murug ugu dilaysaa maxaa waalidkeed u ceebeynay maxaa ayadu u ceebeynay maxaa walaalaheed u ceebeynay maanta wiilkii la dhashay muxuu dareemi karaa wallahi waa wax xun qofkii sameeyay horta ilaahay ka jaasi doono qofkii waxaas ku sameeyay waa kulay nin waayay rag oo sheegan nin rag waxa uu aqaana qofkii gabar walaashiisa difaaco oo qalad hadii lagu sameeyana ka damqada laakiin nin ragkaas ma aan xitaa naagaha ayaa dhaama ma garateen soo wallahi wax laga xumaado tan kaleeto videoyaasha waxa gudbinayo oo share gareenayo oo meel kasta dhigayo waa la yaabanahay aniga anoo gurigeyga jooga ayuu igu yimid videoga Snapchat baa lagu soo diray Soomaalida waxaan kala yaabay share bisay garanayeen wanaaga ma faafiyaan laakiin xumaan ma ka dhacdo xumaan haday ka dhacdo aad ayaa lagu faafinaya wanaagaaga qof u baahan malahan hadii gabadhaas aniga gabadha garanaya ma aha laakiin aragti ahaan waa aqaana TikTok ee caan ka tahay TikTok aan ku arkay so wallahi abay waa ka xumahay qalbiga ilaahay ku dajiyo qalad bil aadan uu gala qalad waa gashay haddana khiyaanadaas uu kugu sameeyay adi ilaahay u toobakeen waalidkaan kuleysa iskaga xalin karti iskaga xali waxa waaye adigana ilaahay u toobakeen waxa waa wax weyn ma aha qof kasta qalad uu ka dhacay ilaahayna uuntay ayaa qaladka cafiyo ciqaabna dadka siiyo laakiin bil aadanka adduunkeeba kugu ciqaabayaan waa wala yaabay wallahi maanta waa xanaaqsanaa wala bilaa tan kaleeto
gabadhaana ma ahan gabadha ugu horeysay ee video laga soo duubay ee social media la soo dhigay gabdho badan aan ugu sameeyay waa aragtay waliba qofka markuu caan yahay aad loo jecel yahay waxa la jecel yahay in la garaafeeyo oo dhulka lagu jiido waxaan waa adduun walaal adduun waa laga tagayaa aakhira la tagayaa meel xisaabtami doona la tagayaa qof walba oo gabar Soomaaliyeed qalad ka galay mis gabar miskiin ee waxay rabtaa ahaato qalad ka galay maalintii yawmal qiyaamo see u qaadaysaa walaal biri ayaa lagu weydiinayaa maanta adduunyo way ku farax jabkeeda ku farax dhibaatadeeda ku farax maxay ahato ceebteeda ku farax ilaahay ceebta ma jeclo qofka ceebta faafiyana ilaahay ceebtiisa ma asturo ceebtaada walaal si ilaahay u asturo ceebta walaasha astur qof kasta waxa kula talilaay oo videogaas gabadhaas uu YouTube-kiisa yaalo walaal ka qaad gabadha waa walaashaada waa wax ilaa mustaqbalkeeda galaafan karo aysan ilaaweynin videoga ka qaada wallahi shucuurteedu way kacsantaa aniga aad u xanaaqsanahay laakiin dib ma lahan gabadhaas walaashay waxaan dhihi lahay qaldame waa ilaah qof kasta qaldama qof kasta inaga mid ah qaldama anaga ma dhahayno maxaa u qaldanta qof kasta uu qaldami karaa bil aadam waay ma fahanti marka anaga waxaan nala gudboon inaan share gareynin videogaas inaan qof walba oo soo dhigayna aan kala dagaalamo qaabku u tirtiri lahay gabdhaha marmarka qaar waxa ku qasbaysin inaysan nin shukaansanin nin la hadlin xitaa aysan guursanin sababtoo ninka wax sameynaayo biri muxuu rabaa naag fiican inuu guursado Soomaan gabdhi islaameed intuu soo haleeyay oo soo xumeeyay oo biri wuxuu rabaa tu wanaagsan inuu helo oo sharaf leh walaal adaa dadka soo xumeysay maalin maalmaha kamidana way ka jaran tahay ma fahanteen marka qof walba qalad gabar ka gala ha ogaada biri inuu u yaalo biri uu ku yaala gabar kasto oo qalad ka gashid ama aa xumeysid biri ayuu ku yaala waa wax aa harsanaysid oo u fadhidid way hubaana waxa ilaaha sheegay kutubka ilaahay oo ku qorantaa qof walba jisiduu geesto ayaa laga jaasiyaa ma fahanteen marka wala aad iyo aad uga xumahay inay gabadha waxaas ku dhacdo hadda waxa dareemayaa yacni inay dhibaato weyn ku jirto sababtoo ah qof caannimadana marmarka qaarkood dhibkaas ayay leedahay maanta gabar la aqoon haday ahaa lahayd sidaan ma noqon lahayn wallahi caannimada aad ay u xun tahay wax fiicanna ma dadku way jecel yihiin laakiin biri markii fadeexa laga qabto mis adoo wax sameynay laga qabto ayay ku dhibaysaa sababtoo waligu yaqaan qof kasta ku yaqaan way adagtaa marka saa adiga markaas u badbaadid ama lagaaga aamuso ama lagaaga daayo kulli horta waxaan week mise laba week ay wadwadi doonaa ma fahamtay Soomaaliyan ku aqaanaaw way iska ilaabi doonaan wax weyn ma eedan qalbigeeda Ilaahay u toosiyo waalidkeeda baa ka fikirsanahay waa dareemi karaa waalidku waxay dareemayaan gabadhoodii oo meelaha la wareejinayo laga yaabay xataa waalidkeed inay social media ku jirin laakiin dabcan walaalkeed ilma adeero dadayihiin waxa laga yaabaa dad familkeeda inay ku jiraan social media ee dhibsadaan ee la yaabaan يعني waxyaabaha walaashood ay sameysay ka xumaadaan wallahi wiilkaas qalad ku sameeyay ilaahay ha ku ciqaabo ciqaab ilaahay adduunka ku tusiyo qof walba horta qalad sameeyo ciqaab uu leeyahay laakiin intee waaye ilaahay aakhiro uu ku ciqaaba qofna adduunka ku ciqaaba laakiin ilaahay adduunka ha ugu jaasiyo aakhirana ha ugu daro wallahi habaar ma ahan laakiin wuu asaa mutaystay habaar ma ahan wallahi lama habaar lahayn laakiin asaa mutaystay soo marka waa wax laga xumaado walaa asxaabta aniga shucuurteeda maanta aad ay u kacsan tahay wallahi boqol maraya xanaaqayga laakiin xanaaq wax ma tarayo laakiin waxa ciil iga haya nin Soomaaliyeed baa ciil iga haya nin oo dhan ma ahan laakiin nimanka Soomaalida aaminaad ma bagalaanba wallahi mid ku cuno oo ku googoosto mid ku qalo waxaan ku iri mid fadeexadaada faafiyo war walaalayaal waxa geer ka keenaa hadii rag dhan saan ay wax sameynayaan xageer rag laga keenaa way hadhoodina waxa leeyihiin ajnabi ay raacday oo ajnabiga dana nagu qasbaysabe in la raacdana dadku ku qasbayso sababtoo ay rag Soomaaliyeed ayaa waxay noqdeen bahalo iyo maxay ahayd oo dadka noloshooda dadka galaafto oo hadda gabadhaas ninkaas wax isku sameeyo ugu yaraan wuxuu isleeyahay hadda dhibaatadan darteeda way ku ceeboobaysaa waxa waaye laga yaabay inay isku disho laakiin gabar islaam waaye iimaan ay leedahay qalada ka dhacay tooba u furan ma fahamteen inay isdisho inay dib isku geysato ma ahan hadda adduunka gabar marka khalad laga galo mise qof xataa jeclaayeen uu qayaano kaliya way isdilaan maxay isku dilaan mu adkaysan karaan sababtoo iimaan ma lahan alxamdulillah anaga iimaan aan leenahay oo ku sabreenaa qof kastoo qaladka laga galayna waa inuu ku sabraa hadduu uu qalad galayna qofka qaladka uu ka galay waa Allah ayuu u tooba keenaya bil aadan ma ahan
dadaa waxay dhahaa maxay waxaas u sameysay maxay waxaas ayada ugu taxadari weysa bili aadan waa qofkan qalbiga laga xadi karaa gabar waaye way qalbi jiracsan tahay anigu waxaa eed saarayaa nimanka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed wallahi rag waxaa ku jiro rag isku sheeg ah oo suwaal ishaat soo gashtay bas kaliya suwaal ishaat ku yihiin rag laakiin raganimada ma aan suwaal ishaati waa ina raganimadaada ay tahay gabadha ina difaacid ina walaasha dibka ka dhoortid tan kula dhalatay iyo tan Soomaaliyeed waa walaashaada maxaa adigu dhibaateynaysaa waa may hadaa dhibaateysidna biri waa adigu wax ku yaalo horta gabar lagu xujeeyay maxay ahayd sida lacag inay mar walba qofkii ku qasbanaato inay u tagto ee dhibki shalay ay gashay mid lamida ee maalin walba la sameeyso ay ku kalifaan ina gabar walaashaada video ka qaaday ku rakaataysid oo hadare aad dhahdid mar walba ama lacag isii amba maxay ahayd mar walba markan ku baahda waa ina ay imaada ka waran wallahi wax laga xumaado ilaa waxa uu isticmaalaysaa sidii xoolo soo gadato kaleeto xoolaha soo gadato xaqi leeyihiin maxaa qofkan bil aadanka xaq ugu galaysa war marka qaarkood dadka waxa qabanaysa ku dhaw Soomaali maxaa uga dhalatay wallahi Soomaali ma aragtay ilaaha u gargaaro waxa dhibta noogu socto habeen iyo maalin ee dhibta nooga bixi laadahay wadankeena u degi laayahay waa tan oo kale gabar masaakiina la dhibaateynaya maxay ay maama masaakiina la dhibaateynaya wiil oo masaakiin baa la dilaya xaq darro lagu dilaya war wax walba la sameynaya war fiir ilmo yar ma la dhaafo oo saqiiradu waa la kufsadaa oo maxay war wax ay sameeyeen Soomaali wax ka dhicin male wax walba ka dhicin xitaa wiil la farxmeeya dhacday gabar la farxmeey cunug laba jira la farxmeey ka warama wadankeena soo ku dagaya ma dagay ilaa dhibtaana ka socto maal walba gabar iyo hooyo oynays maxay taa waxaas marka waxaan leeyahay asxaabta meesha ku soo gabagabeynaya gabadhaasna dhibka ku dhacay aad iyo aad uga xumahay waa wax laga xumaado waxa sameynaysid ha xumaadaan ha wanaagsanaadaan waa wax ku qoran mar walba waa wax ku qoran laakiin ficilkeeda adaa la imaaday waxaan leeyahay toobada Ilaaha haysto Soomaali ma hayso Soomaalida dhehayso eeda qaldan eeda saan eeda ka dhacday war qofka qalad uu gali kara adiga laftirkaaga dhahayo 100 qalada gashay laga yaabay 100 gabar inaa xumeysay iyagu kun gabdhooda xumeysay qofna kuma ogo way gabadhan inuu sheedaan u nuuriyay qaladkaas ee sameysay dibkaasna uu nin ka dambeeyay nin rag ayaa ka dambeeyay waa nin rag isku sheegay laakiin xataa qaniiska dhaaman dhihi karaa baan wallahi sababtoo ninka qaniiska gabar inuu xumeey ma jeclaba moogta asaab gabar inoo ma qoslin wallahi maanta qosl ma jiro ma faantay soo marka asxaab intaas ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay dadku xumaanta faafinayna xumaanta ka daayay gabadhaas maxay aheedo yada si share gareysid mar walba waxa si share gareysay macaasi iyo wax xun ayaa si share gareynaysa wax faa'iido ku ma jirto dambi ina ka heshid ma ahe soo marka waxaan dhihi lahay videogaas stop meesha lagu xiro gabar walaashay waaye dibkaas ee ku dhacay ha ku farxin please so asxaabta intaas ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay insha Allah kulay gabdhaha Soomaaliyeed has ilaaliyaano kulligeena Ilaahay hana xafido hana amaansado ilaa waxa ku joognaa 7 haweenka Soomaaliyeed ee yihiin kuwa haweenka ugu liito adduunka sababtoo ayaan liiday oo dibkaas noo geystan waa nin rag wiil Soomaaliyeed ma shishay soo markii inay gabadh ajnabi guursato ayaa loo qaatay inay ajnabi shukaansato ayaa loo qaatay gabdhaha Soomaaliyeed markay qurbaha joogaan maxay ajnabi u raadsadaan waxay u raadsanayaan dan ayaa ku kaliftay sababtoo nin kasta oo Soomaaliya wuxuu la damacsan yahay gabadha xumaan wanaageeda kama taliyo soo marka ninka ajnabiga laba wada ugu imaanaysa mid baashaal inuu baashaal rabo iyo inuu mustaqbalka rabo hadii aad ogashahay ready ku diyaar ayuu yahay hadii aad ogoleen uu ka tagay laakiin ninka Soomaaliga asoo mustaqbal ku gambanayo inuu ka rabo ayuu adiga dhibaato ku geysanaya berina barti ayuu kaaga tagaya soo marka waxaan leeyahay wiilish Soomaaliyeedna Ilaahay ka cabsada qaarka xun ayaan la hadlayaa mar waliba Ilaahay ka cabsada gabar walaashiin inaa xumeysiin ama dhibaateysiin waxa ka faa'iideysiin malahan Ilaahay ka cabsadaan leeyahay meeshaan ku soo gabagabeynaa videoga asxaabta fadlan videoga haduu ku cajibiye like saar comment ka soo bixi hadaa channelkayga ku cusub tahay markii ugu horreysay aad tahay subscribe noo dheh intana ka bixi raayigaaga wixii kula tahay soo marka waxaan rajeeyaa khayr badan bye bye